السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دhammaan asxaabta qiimaha badan maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa systemkeena qaybtiisa labaatanaad. Waxaan kusoo guda jirnay ama aan soo sameynaynay system aan ugu soo magac darnay school management system annagoo isticmaalayna programka lagu magacaabo Microsoft Access Database. Casharkii ka horeeyay waxaan kusoo qaadanay dashboard ayaan kusoo qaadanay oo dashboardkeenana qaabkan ayaan kasoo dhignay oo sidaan ayaan usoo qurxinay. maanta waxaan sameynaynaa haddii ilaahay yiraahdo login ama wax la yiraahdo login iyo log out ayaan sameynaynaa. Okay, kan log out inaga dheh. Okay, si aan u sameyno taa waxaan imaanaynaa halkan ay nooga qoran tahay create. Halkan ayaan imaanaynaa kadibna blank form halkan ayaan ku dhufanaynaa. Halkan markii aan ku dhufano waxaa inoo sameysmay formkan right click ayaan leenahay kadibna design view. Okay, log inka ama log outka ama wax la yiraahdo user name iyo password ba waa maaragtay nidaamkan ayaan u sameynaynaa. Okay, waxaan la soo galaynaa waa maaragtay maan imaanaynaa badhana ayaan la soo galaynaa. Okay, form design halkan ayaan imaanaynaa kadibna waxaan soo qaadanaynaa wax la yiraahdo text box ayaan soo qaadanaynaa. Text boxkeena halkan ayaan ku jiidanaynaa. Halkan markii aan ku jiidano text boxkan ay ku qoran tahay text box 0 halkan waan tirtiraynaa waxaan ku qoranaynaa user name ayaan ku qoranaynaa. Sidoo kale mar kale ayaan text box soo qaadanaynaa halkan ayaan ku jiidanaynaa isaguna sidoo kale. Okay, halkan markii aan ku jiidano dib aan u soo celino. Okay, waxaa naga maqan text boxkii. Okay, delete naga dheh. Aan soo qaadano text box halkan aan ku jiidno. Okay, text boxkeena isagana sidoo kale waan ka tiraynaa halkan qoraalada ka tiraynaa waxaan ku qoranaynaa password ayaan ku qoranaynaa. Password ayaan ku qoranaynaa kadibna intaan doorano ayaan dib u soo bixinaynaa. Kana sidoo kale intaan doorano ayaan dib u soo bixinaynaa. Okay, text boxyada marka waa isla keenaynaa ama waa simaynaa. Okay, sidoo kale kana sidaa oo kale ayaan u simaynaa isagana. Okay, waxaan u baahannahay marka xoogaa text boxka qaybta ay ku qoran tahay userka ama passwordka iyo qeybahan inaan maaragtay iskor dhigno. Tusaale waxaan u baahannahay qaybtan ay ku qoran tahay user inaan qaado oo aan boxkan korkiisa aan dhigo. Okay, sidoo kale kana intaan doorto click halka darafka intaan ka tago leftiga aan ku dhigo kadibna kor aan u qaado. Okay, aan dul saaro macna kadib aan leeyahay marka labada easy. Okay, tusaale waxaan leeyahay halka igey. Okay, sidoo kale kana soo qaad isagana halkan ikeen. Okay, intaan markii aan sameeyo marka waxaan soo gelinayaa waa maaragtay laba badhan ayaan soo gelinayaa. Halkan waxaan soo qaadanayaa button ayaan soo qaadanayaa halkan ayaan dhigayaa. Halkan markaan dhigo cancel ayaan iska leeyahay badhanka. Okay, waxaan leeyahay marka waxaa ku qoranayaa badhan la yiraahdo login ayaan ku qoranayaa. Sidoo kale mar kale ayaan waxaan soo qaadayaa badhan ayaan soo qaadayaa halkan ayaan dhigayaa. Okay, kaas haddii login aan ka dhigay kan waxaan ka dhigayaa log out. Loginka waa programmin doonaa username iyo password iyo hawshaas ayuu u baahan yahay waan sameyn doonaa. Okay, mid kana log outka isaga waxaan leeyahay form operation waaye close form waaye. Formkan ayuu iga xiri doonaa. Next ayaan leeyahay kadibna qaybta kore ayaan tagayaa halkana waxaan ku qoranayaa log out ayaan ku qoranayaa log out. Kadibna waxaan leeyahay next finish ayaan leeyahay. Okay, xoogaa marka badhanka ii dheereey. Okay, ka ola sid. Kadibna qaybtan property sheetka ayaan imaanayaa halkan ayaan furayaa halkan waxaan dooranayaa form ayaan ka dooranayaa meeshan daaqadan ayaan form ka dooranayaa. Okay, formatkiina keen. Okay, waa record selectorkii navigation badhankii iyo sidii aan u xiri jiray ayaan u xiraynaa. Okay, waxaan xiraynaa hadda record selectorka meeshaas yes ay inoo tahay waxaan ka dhigaynaa no. Sidoo kale navigation badhankana waa maaragtay isagana waxaan ka dhigaynaa no ayaan ka dhigaynaa. Okay, control box keen isagana waxaan leenahay no inooga dhig. Sidoo kale close badhankana no nooga dhig. Other ka dhigay
marka otherkaan tagno bob upkan waan u furaynaa yes ayaan leenahay modelkani sidoo kale yes ayaan leenahay okay hadda aan dhahno markii view aan dhahno okay daaqadeena usernamekii passwordka qaabkan ayuu ekaatay oo sidan waa maarata ayay noqotay okay xoogaa waxaa u malaysaa in dhirirka uu ku badan yahay qaybta hoose ayaan kasoo yareynaya dhirirka sidoo kale badhanadana qoraaladooda waan qurxinaya okay right click ayaan leeyahay kadibna design ayaan leeyahay okay si aan qaybta hoose usoo yareeyo marka halkan ayaan tegayaa kadibna waxaan leeyahay halkan kasoo qabo oo soo yarey ilaa iyo intaa ikeen okay ilaa iyo intaa markaan keeno waa maarata qaybtana waxaan leeyahay waa maarata xoogaa kusoo dar okay qoraaladani waxaan intaa isku doorato waa maarata qaybtan format intaa tagto okay cabirka kordhi qoraalka oo waxaa ka dhigtaa ilaa iyo 14 camal ka dhig okay usarada in la arkaa rabaa sidoo kale halkan waxaan ka dhigtaa times new roman inooga dhig okay fartana black inooga dhig oo madow ka dhig okay kadibna waa maarata boxka xoogaa waxbaa ku daraya okay username password way muuqdaa okay waa maarata intaanan sameynay kadibna homekeena nigay view aan dhahno okay daaqadeena usernamekii passwordka nidaamkan ayuu ekaatay oo qaabkan ayay noqotay keliya waxaa ka dhiman hadda inaan maarata badhankan loo yaqaano login inaan code garayno code ayaa la qori doonaa sidoo kale inaan sawir soo gelino iyo icon ka turjumaya usernameka iyo passwordka inaan soo gelino intaa oo keliya ayaa inooga harsan casharkeena 20aad halka ayuu inooga yahay sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan haddii aad ku cusubtahay janalkeena subscribe inoo saaro like-ta nagu dhiirigeli wixii faaliyi comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka